haddii aad i weydiiso dareenka ugu wanaagsan adduunka, waxa aan ku leeyahay waa inaad dareento in aan lagu dhayalsanaynin, inaad meel aamin ah ku jirto xataa haddii aad gabto, in lagu fahmay xataa haddii eryada aad sheegaysa ay isku dhex yaacsan yihiin oo aadan si quman u oranin, in aanay wax lagugu doorsanayaa jirin xataa haddii xaalku uu kugu xumaado oo gudaha aad xasilooni dare ka dareemayso, in aan lagaa tegaynin xataa haddii aad dareemayso inaad u baahan tahay naftaada inaad ka tagta. Saaxiib, ma jiraan wax ka wanaagsan inaad ogaato in mar walba laabtaada la xasilinayo, ilmadaadana la masaxayo si kasta oo ay duruufuhu noqdaanba, gacantaadana aan la sii daynaynin si kasta oo xaalku u qadhaadhaado. Saaxiib, ma jiraan wax ka wanaagsan inaad hesho qofkii ku odhan lahaa adiga ayaa mar walba kaalinta koowaad ii jooga, wax walbana adiga ayaa agteeda kaga mudan, xataa naftaadana ku dheh oo weliba aanan ku ekaynin hadal ee aad habdhaqankiisa iyo ficiladiisana aad ka aragto, oo uu raaxadaada tiisa ka hormariyo, badhaadhahaagana uu kiisa ka horaysiiyo, xataa haddii uu ogaado arrin adiga kuu roon isagana u daran, dooranaya inuu adiga kaa farxiyo haba murugooda isaguye. Saaxiib, ha ii malaynin in aan ka badbadiyey dadka jaadkaas ahi waa dhif iyo naadir, laakiin way joogaan. haddii aad qofka shakhsiyadaas leh weydo, noqo adiga qofkaasi. waa walaalkiina Cabdixakiin Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.